barnaamijkeeni xiisaha wararka qodobka ugu horeeya ee xiisaha wararka daawadaya aan ku soo qaadan doono waxa weeye sharci meel mara oo samayn kara ama awoodi kara in la sii daayo dadka ay ICE hay-adda ciidanka laanta socdaalku ee dalkan Mareykanku ay xidhay ee ay xabsi geysay. Sharcigan aan idiin soo wado oo dad badan saameyn doona ayaa waxa lagu sii daayay durba sida aan wararka ku helay dad 100 qof ku dhow oo sharcigan ama qiilkan loo raadiyay kadibna barnaanka la soo dhigay oo qareenadoodu ay soo daayeen ayaa noqday dariiqa ugu muhiimsan ee lagu sii deynayo dadka ICE sida sharci darrada ay u xidho ee ay u geyso meelaha ay dadka ku hayaan gaar ahaan gobolkan Minnesota iyo gobollo kale oo dalkan Mareykanka ka tirsan. Kiisas badan ayaa muujinayay in mararka qareenadu maxkamadda ay u gudbiyaan codsigan dowladda lagu qasbo inay caddeyso sababta qof loo hayo amaba loo xidhay. Haddii aysan caddayn karin markaasi qofkaasi dembiga uu galay iyo wax loo hayo maxkamaddu amar ayay bixinaysaa oo qofka waa la sii deynayaa. Minnesota gudaheeda waxaa jiray haweeney Soomaaliyeed oo laga qabtay deegaanka ama degmada la yiraahdo Apple Valley taasi oo in ka badan 2 toddobaad lagu hayay xabsigaasi oo ay ICE maamusho. Markii haddaba habeas corpus la gudbiyey maxkamadan loo gudbiyey waxa maxkamaddii ay amartay in lagu sii daayo haweeneydaasi Soomaaliyeed muddo ku siman 48 saacadood gudahood maadaama dowladdu aysan keenin wax sharci ah oo caddaynaya gabadha xarigeeda. Sidoo kale 2 kiis oo kale oo Minnesota ka dhacay oo Robert iyo Pondi la yiraahdo iyo weliba Serial iyo Pondi ayaa muujinayay in ICE ay jebisay xeerarkeedii gudaha iyadoo aan sheegin sababta xariga ama aan caddayn wax isbedel ah oo ku saabsan musaafiriinta dadkaasi. Labadaasi qofba waxaa lagu sii daayay amar maxkamadeed. Gobollo kale oo ka tirsan dalkan Mareykanka oo ay ka mid yihiin Maryland iyo Oklahoma ayaa sidoo kale laga diiwaan geliyay dad badan oo lagu sii daayay habeas corpuska gaar ahaanna marka ICE aanay hayn amar musaafiriin oo sharci ah amasan aanay caddayn karin sababta ay qof u hayaan amaba ay xabsi u geeyaan. Meelaha qaar boqolaal codsi ayaa la gudbiyey waxaana maxkamaduhu ay sii deynayaan dad badan oo xarigoodu u ahaa mid sharci darro ah. Ugu dambeyn habeas corpus waxa uu noqday difaaca ugu xoogga badan leh ee ka hortaga xariga aan sharciga ahayn gaar ahaanna marka ICE aanay caddayn karin sababta ay qof u soo xidheen amaba ay u hayaan qofkuna aanu jebin shuruucdii ama sharcigii ahaa order of supervision waxa loo yaqaano ama musaafiriintu aanay ahayn mid macquul ah. Haddaba habeas corpus waa maxay? Waa erey Laatiiniya oo macnihiisu uu yahay soo bandhigga qofka la haysto. Maxkamaddu waxay amartaa hay-adda qofka haya marka ama haysa sida tusaale ahaan ICE oo kale inay qofka keento maxkamadda si loo hubiyo in xarigiisu uu sharci yahay iyo in kale. Maxaa lagu sameeyaa habeas corpus? Waxaa loo isticmaalaa in lagu baaro in qofka la hayo ama loo hayo si sharci ah, in hay-adda haysa ICE iyo tay doontaba ha noqotee ay leedahay amar sharci oo sax ah, in qofka la xidhay uu helo xuquuqdiisa, in xarigu aanu noqon mid si aan sharci ahayn oo aan sabab lahayn markaasi loo hayo qofka. Haddaba maxkamaddu maxay samayn kartaa haddii ay maxkamaddu ogaato in ICE aanay haysan sabab sharci in ama aysan caddayn karin sababta qofka loo hayo ama musaafiriintu aanay macquul ahayn? Maxkamaddu waxay amri kartaa in qofka la sii daayo isla markiiba. Tan waa sababta habeas corpuska loogu yaqaano markaasi sharciga ugu weyn ee difaaca xorriyadda qofka. Meesha uu ku qoran yahay sharcigani haddaba waa xagee? Waxa asal ahaan uu ka yimid Magna Carta waxa la yiraahdo 15 oo odhanaya in qof aan la xidhi karin la'aanteed sharci sax ah oo aan lala iman. Waxa sidoo kale
ku jira dastuurka dalkan Maraykanka qaybta loo yaqaano suspension clause. Waa maxay sababta uu muhiim ugu yahay dadka ay ICE qabato sharcigani? Habeas corpus waa habka ugu degdega badan ee qareenadu ama looyaradu ay u isticmaalaan si ay u joojiyaan xadhigga sharci darro, gaar ahaanna marka qofka lagu hayo waqti dheer ICE aanay caddayn sababta, ama qofka hore loogu sii daayay order of supervision oo si lama filaan ah loo qabtay, ama musaafiriintu aanay lafteedu ahayn mid caqligala. Maxkamaddu waxay ku qasbaysaa ICE in sharci cad ay keento. Haddii aanay keeni karinna qofka waa la sii daynaya. waxaa weli ka socda gobollada ay Minnesota ka mid tahay iyo Ohio, Columbus, Ohio, oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku nool yihiin, ama tirada dad ee Soomaaliyeed ee ugu badan ay halkaa degan yihiin, in weli ay ka jirto qabqabashadii ICE ay qabqabanaysay weliba dad sharciyadooda wata oo ku yimid dalkan Maraykanka ama sifo sharci ah. Dadkaasi ayaa xabsiga la geynaya. Weli maanaan maqal dad Soomaaliya oo la sii daayay ka hor gabadhaasi iminka aanu warka ku soo darnay. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka walaacsan in iyagoo sharci wata oo sharci leh ama dalkan ku soo galay in dhexda laga qabto isagoo ku jira nolol maalmeedkiisii amaba dukaanada waaweyn ee magaalada Minneapolis ka soo adeeganaya. Taasina ay keento in qofkii weynaa ee waalidka ahaa iyo ciyaalkii ay kala irdhoobaan, amaba ciyaalkii qaar la qabto oo dabeetana loo gudbiyo gobol kale si aan loogu iman. ICE, hay-adda laanta socdaalka ee dalkan Maraykanka, ayaa daawadayaal doonaysay amaba qorshaheedu u ahaa in dadka markii ay qabato aanay ku haynin gobolkan Minnesota ee ay markaba u gudbiso gobollo aad u fog oo ay ka mid yihiin Texas. Taasi oo macnaheedu uu ahaa in marka ugu horeysa qareenadu ama looyaradu qofkii aanay si fudud ugu tegi karin ama aanay ula xidhiiri karin. Sidoo kale qofka waalidkiisa iyo eheladiisu in iyana ay kala fogaadaan oo ay kala wari waayaan inta ay ku jiraan proseska ama hanaanka qofkii dib loogu celinayo waddankiisii hooyo. Ilaahay hadda waxaana soo gaaraya ama wararka noo imanaya dhowr qof oo Soomaaliya in durba la geeyey magaalada Muqdisho, kuwaasi oo laga qaaday Texas. waxaa ku jiray oo ugu muhiimsanaa wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Cabduul, oo isagu magaaladan ama gobolkan Minnesota caan ka ahaa muddo 20 sano ka badanna joogay, asalkiisii horena ka yimid waddanka Canada. Ninkaasi sifadiisa sharci ayaa la dedejinayay, waxaana markiiba loo gudbiyey si gaar ah magaalada ama idhaahdo gobolka Texas. Kadibna si dhaqso ah ayaa dabeetana loo saaray diyaarad kale oo loo geeyey magaalada Muqdisho. Cabduul isagoo nabad qaba ayuu haatan dhex mushaaxaya caasimadiisii magaalada Muqdisho. Haddaba barnaamijkan warka ama xiisaha wararka ka sokow waxaanu dadka Soomaaliyeed u soo gudbinaynaa ee gobolkan ku dhaqan in ay ku xisaabtamaan ama difaaca hay-adda laanta socdaalka iskaga difaacayaan aanu noqdon mid cunf iyo dagaal wata, ee uu noqdo mid sharci iyo nabad wata, oo qofku markuu sharci dalkan Maraykanka uu ku haysto isaga iyo qareenkiisuba ay ka adkaan karayaan ama ay ka guuleysan karayaan ICE. laakiin aanu samaynin qofku isagoo sharci haysta inuu yidhaahdo ciyaalkii caano uma soo gadi karo oo waa la isqabaqabanaya. qofku sharcigiisa ha ku dhaqmo. sharcigan iminka aanu ka hadlayno ee habeas corpuskana waxa weeye mid maxkamaddu ay ku doonayso in qofkii la hor keeno sida ugu dhaqsaha badan leh, ee aan inta la qabtin layska dhoofin. dabeetana haddii sharci lagu waayo ay ooda ka qaadayso dhammaan dadkaasi sharci darrada lagu soo xidhay ee iyagu sharciga haystay muddo ku siman 48 saacadood. barnaamijkeeni xiisaha wararkana daawadayaal qodobkaasi ayaan kusoo gabagabeynaya. tan iyo kulankeena dambe inta ka horeysa waa Cali Xaraare oo idinla dhammaantiinba sidaa iyo nabad gelyo.